baa maalin igu yidhi markaan barqaamana salaad khushuuc baan tukadaa wy salaad khushuuc markuu jirkayga ka baxana salaadda ma kici kara wy marka waran innakana dhallinyaradeenna ka warrama kubadda markay ciyaarayaan iyo salaada maqrib hadday isqabtaan ka warran ya kalaaska iyo salaaddii maqribna caroos iyo salaaddii cishaayna jaad iyo salaaddii casarna kaa warkiisa iska daabadhe walaayada warkiisa laga wada ilaahu ummaddeena ka qabo aamin dhahada imisuu dhaqaalay naga qabaa waa imisuu caqli naga qabaa waa imisuu waqti naga qabaa waa imisuu caafimaad naga qabaa waa imisuu cibaado naga qabaa geedkaas shanta shay ee diinta islaamku qofka u ilaaliso dhan jaadkaas u dhaawacay bay culimmadu leeyihiin maanta dhaqaalaheenni u dhaawacay caafimaadkeenni u dhaawacay diinteenni u dhaawacay sharaftii aad lahaydna u dhaawacay qofka jaadka cuna sharaftiisu meel ma taallo islaanta jaadka iibinaysa hadday doonto odhan asalkaagiiyo aabahaya asalkaabee lacagtaydiisiyo u qosli u ila waa nin sakhraansanoo si kale berri baan keeni doonaa lacagta kale isiisii haddana dee mayla aragteen car nin dhan oo caaqila oo reer dhan maamulaya ayaa duhurka kowda markay gaadha hadduu bilaa lacag yahay oo jaadlaydu lacag hore ay ku sii lahayd way caayi dadka hortiisa uu qasli u awa damiirkiiyo dadnimadii cirdigeennii buu bahalkaasi meel kaga dhacay maanta cirdigeenni sidaa raggii iska daayo dumarkiibuu maanta maraya dumarkii hadduu qofku geedka uu taabtana ogow noloshiisaas way baabaaden qofkaas waxba ma dhisan karayo ogow diintii buu la dagaalamayaa cibaadadii mid baa maalin igu yidhi markaan barqaamana salaad khushuuc baan tukadaa wy salaad khushuuc markuu jirkayga ka baxana salaadda ma kici kara wy laa ilaaha ila allah sax maaha baan ku nidhi sax maaha marka dhallinyarada ilaahay hayna hanuuniyo marka innaku waxaan ku dadaalaynaa sidaa nafteenna aanu islaaxin lahay shaabun nasha'a fii cibaadati illaah in dhallinyaro ah oo dhallinyarnimadii da'dan adag ee fasaadkii balaayadii macaasidii qafladii meel walba ay taaleen lagu yeedhayo ninka ka soo hadhay ilaahay ka soo reebo ee xadhigga ilaahay qabsada xadhigga ilaahay qabsada ilaahay wuxuu ku casuumi doonaa uu nebi maxamed uu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam maalinka hadh kale uusan jirin hadhka alle mooyaane tudna ashamsu yowma alqiyaamati calaa ru'uusi alkhalaa'iqi calaa qadri miil buu nebigu cadcaadda halkaa inaga gubaysa ayaa la soo dhoweyn buu nebigu bani aadamka madaxoogaasaa loo duldhigi buu nebigu dhididka qofka isaga jirhkiisa ka dhacee ka baxay ayaa 70 xusul dhulka intuu galo soo bixi doona buu rasuulku yidhi markaasaa qof walba dembigiisii intuu ahaa buu dhididkiisu iman buu nebigu qaar buu kuraamaha iman qaar buu halkaa jilbaha iman dhow qaar buu guntiga iman qaar buu garbaha iman qaar buu halkaa iman qowlalada wa minhum man yuljimuhu alcaraqu iljaam waa bad adiga kuu gaaro cid kale kuga qabin waa dhididkaagii ogow maalinka khalqigu sida u gubanayaan addoonka ilaahay ku casuumadaya harkiisa hoostiisa ka warrama allah inaga dhigo kuwaas aamiin dhaha yaa u diyaar inuu ka mid noqdo kuwaas wacbud rabbaka xataa yaatiyaka saa ku sheegay hadda ha wecweecan mustaqiim diintaada istiqaamo ku yaalo asadii muxuu ahaa saxaabigan hadal hayay ya khaalid ibnu saciid aabbihii baa ku yidhi baadiya biyo waan kaa mancin
wuxuu yidhi haddaad baadkaagiiyo biyahaaga adiga haysato ilaahay bay quudinaya buu ku yidhi